gudoomiyaha gobolka Shabeelle Mudane Farxaan Maxamed Cali ayaa waxa uu socdaal ugu kuurgalayay xaaladda bulshada degmooyinka Qallaafo Mustaxiil iyo Feerfeer isla mar ahaantan uu gudoomiyuhu ku soo kormeeriyay mashaariicaha horumarineed ee ka guda socda degmooyinkani ayaa waxa uu ku gaadhay tuulooyinka hoos yimaada degmooyinkani waliba xarumaha degmooyinka socdaalkani oo ay ku wehelinayeen mas'uuliyiinta degmooyinkani ayaa waxa qayb ka ahaa si xoojinta xiriirka dadweynaha iyo waliba sidii bulshada loogala tashan lahaa arrimaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban iyadoo mas'uuliyiintani heer gobol iyo waliba heer degmo ay kulamo kala duwan la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmooyinkani ayaa waxa ay ahmiyadda kulamadani ay ahayd sidii bulshada loogala tashan lahaa horumarada kala duwan ee deegaanka ka hana qaaday isla mar ahaantaana loo xoojin lahaa xiriirka maamulka iyo bulshada waxaana ugu horeyntii kulamadani ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeelle Mudane Farxaan Maxamed Cali shirkeenina uu yahay muhiimadiisu in halkii aan taagnayn aan hore uga sii socon horay in loo sii socdo horay isbeddelkan jira cid kasta oo deegaanka Soomaaliya u dhalatay gaar ahaan gobolka Shabeelle inay ka faa'iideysato maanta inay wax beerato inay shaqaysato inay macnaheedu wax tabcato inay nabadgelyada hesho inay seexato inay soo toosto in cidda sababtay ay tahay xisbiga dimuqraadiga ee shacabka Soomaaliyeed Itoobiya sinaan iyo cadaalad iyo nidaam dimuqraadiyadeedna dadka uu ku maamulayo kulamadani lala yeelanayay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmooyinka Qallaafo Mustaxiil iyo Feerfeer ayaa dhankooda waxa ka hadlay gudoomiyaasha degmooyinkani ayagoo sheegay in bulshada mar walba looga baahan yahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen isla mar ahaantaana ay u garab istaagi lahaayeen maamulada qaybihiisa kala duwan si looga miro dhaliyo higsiga horumarineed ee xukuumaddu ku tallaabsatay bulshadii ka soo qayb gashay kulamadani ka qabsoomay degmooyinka Qallaafo Mustaxiil iyo Feerfeer ayaa dhinacooda waxa ay sheegeen inay aad u bogaadinayaan kulamadani mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo la yeelanayaan isla mar ahaantaana ay diyaar u yihiin sidii ay qayb libaax looga qaadan lahaayeen horumarada kala duwan ee deegaanka ka hana qaaday ugu dambeyntii socdaalkan isugu jiray u kuurgelidda xaaladda bulshada iyo waliba kormeeridda mashaariicii sanadani 2007 loogu talagalay degmooyinkani oo ku soo idlaaday jawi wanaagsan ayaa bulshada ku nool magaalada Qallaafo waxa ay mas'uuliyiinta heer gobol iyo waliba heer degmo ay ku sogootiyeen ciyaar dhaqameedka loo yaqaano jaariilaha